guurtida odayaasha waxgaradka iyo shacabka ku dhaqan degmada Damalaxagare ee gobolka Sanaag ayaa shir jaraa'id ay qabteen waxay kaga hadleen duulimaadyo iyo faragelin ay dhawaan ku soo qaadeen ciidamada Somaliland deegaamadaas halkaas oo ay ku waxyeeleeyeen dad shacab aan waxba galabsan waxayna ka warbixiyeen odayaasha deegaankaas taariikhdii ay Somaliland dagaalo kala duwan ku soo qaaday deegaamada bariga gobolka Sanaag iyagoona ka codsaday beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya in ay soo farageliso waxana laga qabto arinta ka soo cusboonaatay deegaamada bariga gobolka Sanaag oo ay doonayaan maamulka Somaliland in ay xoog ku qabsadaan dad iyo dal aan lahayn waxa arrinkani uu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday Damalaxagare oo kaga timi maamulka Muuse Biixi waxa aan u soo gudbinaynaa uu yahay si loo ogaado dhacdadaasi waxa ay ahayd nooca ay ahayd waxay ku saabsanayd waxay geysatay cidda la xisaabtami doonta sida loola xisaabtami doono 89kii bishii saddexaad saddexdii galabnimo ayaa jabhadda Muuse halka ka soo gashay magaalada dawladda Soomaaliya way jirtay dawladina Damalaxagare maalinta ma joogin maalintan oo ay ahayd 22kii bishii shanaad 2019 iyagoo jabhadood maamulna sheeganaya bay halka ka soo galeen sidii ay maalinta magaalada ay dabka u saareen bay maantana dabkii u saareen in lagu khatimayay maalinta wixii uu ahaa iyo maanta Muuse waxa uu yahay inuu maalinta mala xoog ma lahayn uu yiri maanta xoog leedahay maanta aad ka aarsan kartaa maanta ka aarso dadka shacabka tan labaadan sheegaynaa waxa weeye markaan ogaanay inay soo socdaan ciidamadaas inay magaalada duulaan ku soo yihiin waxaan la hadalay nimankii saraakiisha ahaa ee hawsha watay Faysal baan la hadalay Faysal waa ninka qaybta gobolka ah ee ciidamada wuxuu yiri amarku iga sareeyaado waxa amarka soo fuliyay ninka la yiraahdo ee Nuux Taani hadii la weydiiyay Nuux Taani wuxuu yiri waa amar iga sareeyo Muuse Biixi buu ka soo baxay waxaad moodaa arrinkii inuu marka Muuse Biixi ku arooray ina cali dhigana isaga waxaan leeyahay adiga meesha kula gaadho ma insha Allah baan ka warsugaynaa isaga ninka meeshiisa loogu yimaadaana ee sharcigu wuxuu ka qabo waa nin waliba waa og yahay ninka horarkaana ee sharcigu waa og yahay dhacdadii maalinkii dhaweyd ka dhacday degmada Damalaxagare ee kaga timi maamulka Muuse Biixi uu hogaamiyo dhacdadaas oo ahayd weerar qaawan oo aan waxba loogu soo gaban oo sabab lahayd oo lagu soo qaaday maatooyinka iyo dadka degan bulshada degan Damalaxagare lagu soo qaaday taas oo loo adeegsaday hub waaweyn hubkaas oo ah kiilidka diyaaradaha 35 gaari oo tiknika ayaa hareeraha laga geliyay khasaare naf iyo maalba leh ayay geysatay arintaasu meeshan aan ka hadlaynaana waa ummad isu timay ilaa dhowr gobol dadkeedii weeye ku soo magacaaban Damalaxagare shacabna ah oo reer guuraa ay isu yimi wuxuu qaadan waaya oo 80kii iyo dhacay 90kii hawlihii dhacay hawlo ah ayaa la soo dirsay magaca aan maqlayo Muuse Biixi maamulka abayna kaga timi soddon iyo wax dheer oo tiknika oo lagu garaacayo oo aan sabab lahayn baa ka dhacday meeshan haddii dawladnimadii hore oo Soomaaliyeed burburtay wax ka dhacay guriga Sanaag la yiraahdo 4 beelood baa ka jiray madax hore oo meelaha kulay galbeedka ka jirtayna way jirtay iyo maamulka halka ka dhacay ee 4 beeloodkii ka baxsan isku dirka ah waxaan ka jiraynaa awoodayada aanu anagu leenahay jiiska waxaan aynoo dawladnimo aan anagu haynayna ma jiraan maxaan ku yiraahdaa hubka leedin tusayay oo nooc walba leh oo ka gacanta laga ridaana ka hadda leeyla barbar taagan yahay ugu weyn yahay iyo qoryo beekaamiya ka kalena hub artillery oo loogu talagalay diyaaradaha aan shacab loogu talagelin in lagu garaaco dad shacab ah oo sooman oo aan dagaal u qaabnayn oo dib ku talagelin gurigood intii loogu yimaado in lagu garaaco arintaasna waxay noqotay arin fooqal sharci wax la qaadan karana aan ahayn midda labaad wuxuu maamulkaasi sameeyay dad darisa oo beela ah oo nabadgelyo ka dhaxayso inuu qaybtood qayb aan wax magarata hub haysato intuu soo dareeriyo qaybta kale u keeno isagoo doonaya nabadgelyada beeluhuna inay faraha ka baxdo taasoo uu kaga faa'iideysto qodobkii uu sheegay oo bandooda ahaa dal aanu lahayn iyo dad aan ramin iyo dhul aanu shaqo ku lahayn ciidamo isagu soo abaabulay geeyey xaaraan bay ku joogaan gardaray ku joogaan gardaru ku keenay carrada xire warsageli ciidanka uu keenay
xaaraan bay ku joogaan waxaannu caalamka u sheegaynaa wixii ka dhaca inuu isagu mas-uul ka yahay heshiisyadii ahaa beelaha nabadgelyadooda soo dhaafay waa mid duulimaada oo xero warsangeli lagu doonayo in lagu qabsado taa ma qaadanayno mana qaadan doonno dadka beelaha degaan gobolka Sanaag badega waxaan leeyahay ha la istifaaco difaac baa idin bannaan dad gobolkooda degmadoodii ku nool baanu nahay jahaad baana lagu soo qaaday jeegaantu wixii ay nagu dijanayada ka jawaabaysa waanu wiilaysannahay waa dilannahay rasaas baana la ku dhacay waana la dhacay waxba waana la ku hagran sid xun baana la dagaalamay waxa jeegaanta noogula dagaalantana jawaabteeda la marinaya haddaanu degmada Damalaxa garanahay anigoo ku hadlaya maatada maxasta dumarka Damalaxa gare waxa weeye annaga waxa weeye wixii ay noo geysteen muuse iyo jeegaantiisa waxa weeye wax aad iyo aad yani u dhib badan bay ahayd iminkana waxa weeye hadalka badin maayo annaga muuse iyo jeegaanta jabhadda inay dadka laayaan oo hubka u sita inay dadka xasuuqaan hubka u sita dad iyo dunyo midna aan eegayn waxa weeye annaga wax naga dhaxeeya ma jiro iyadoo halka ay ku xansuuqeen maatadii xoolihii dadkii biyihii midna aanay u dhaafin uu nagu soo duulay jeegaanta muuse uu noo adeegsaday hubka tiknikada ah kuwa ugu culus BM-ka tarantasaha suuga midna aanay noola hadhin jeegaanta muuse dagaal baa naga dhaxeeya isdhexmar malihi sidoo kale waxay qodobo dhowr ah ka soo saareen beesha warsangeli shir wada tashi ah oo muddo u socday qodobada wixii ka soo baxay shirkii ay beeshu lahayd waxay beeshu yeelatay shir socday dhowr maalmood dal iyo dibadba shirkaasna waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda waxay beeshu ugu baaqaysaa cid kasta oo beesha warsangeli ah una shaqaysa maamulka Muuse Biixi inay tashi kula soo noqdaan beeshooda iyo deegaankooda labo haddii aanu maamulka Muuse Biixi ilaalin nabadgelyada kuna ekaan ciddii ogol khasaaruhu isagu ku dambayn waxaanu u sheegaynaa beelaha deriska ah inaanay yeelin sida Muuse Biixi doonayo oo ah inay nabadgelyadu faraha ka baxdo bandowgiina kaga faa'iideysto oo uu saaray gobolka Sanaag afar waxaanu kaloo halkan baaq uga diraynaa dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ururka IGAD ururka jaamacadda Carabta midowga Yurub dhammaan hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda waxaan ogeysiinaynaa in maamulkaas Hargeysa uu weerar qaawan ku soo qaaday dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo ka mid ah beesha warsangeli waxaana weerarkaas iyo khasaarihi halkaa ka dhacay oo iskugu jira naf iyo maalba dusha u ridanaya maamulka uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi waa ficil abshir Saalax Burkuud warbaahinta dawladda Puntland Damalaxa gare